wax warbixin yar oo kooban haddaan idinka siiyo sanadkan iyo imtixaanaadka marka koowaad waxaan u mahadnaqaynaa ilaaheenna weyn ee noo suurto geliyey inagoo nabadda iyo caafimaadka qabna inaynu iskugu nimaadno sanadkiisii mar labaad inagoo ku dhawaaqayna natiijadii imtixaanaadka ayaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa si caafimaad ku jirana xafiiska imtixaanaadka shaqaalihiisa u suurto geliyey inay ku dhammaystaan hawshoodii ama waajibkoodii ay ku gutaan sanadkan waa sanadkii ugu horreeyey intii aanu imtixaan soo qaadaynay eenu mar la soo gebagabaynay ama natiijada aan soo saarno waktigii dugsiyada dalka la gelayay waa guul weyn runtii waxaan aad iyo aad arrintaa ugu ammaanayaa madaxda wasaaradda waxbarashada wasiirku kow ka yahay wasiir ku-xigeenka agaasimaha guud oo si kalsooni ku jirto iyo dhiirigelin noogu fududeeyey inaanu si degdega imtixaanka ku soo saarno taasoo yacni mar walba ay ku xiran tahay sida kolba tirada loo kordhiyo waxaan kaloo halkan jecelayn iyagana uga mahadnaqo runtii guud ahaan qaranka somaliland oo madaxweynuhu ugu horeeyo oo miisaaniyadda imtixaanaadka iyadana si hagar la-aana runtii loogu sii daayey waxaan kaloo halkan jecelayn ka xuso xisaabiyaha guud ee dawladda oo runtii iyadoo duruuf kastaba lagu jiray mar walba ku dadaalay inaynan miisaaniyadda imtixaanaadku aanu dhilay ku dhicin ama habsaan ku dhicin taasoo ah ta iyaduna sahashay in wakti hore imtixaanku soo baxo maadaama macallimiintu gobollada ka kala imanayeen haddii ay wax dib uga yar dhacaan waxa laga yaaba inay shaqada dib u dhacdo sanadkan wax waliba horumarin buu runtii ahaa waxaana aad iyo aad ugu hambalyeynaya iyagana wasaaradda maaliyadda intaa marka laga tago xafiiska imtixaanaadka shaqaalihiisa aad iyo aad baan ugu hambalyeynayaa waxaanan jecelahay in ninkii noogu qaalisanaa runtii ayaa sanadkan naga dhintay oo la yidhaha cabdilaahi daahir inan waxaan ilaahay uga baryaynaa idinkuna aad nala baridaan inuu ilaahay jannadiisii firdowso ka waraabiyo wuxuu ahaa aasaasayaasha xafiiska imtixaanaadka wuxuu ahaa ninkii tababaraha u ahaa runtii qaabka ama farsamada imtixaanaadka lagu soo saaro isagana ilaahay waxaan uga baryaynaa idinkuna aan jecelahay inaad nogala baridaan si aan uga faa'iidaysto arrintan maanta aynu gacanta ku hayno inuu ilaahay isagana godka u nuuro waxaa kaloo jecel halkan iyadana uga mahadnaqo waxaa jira wasaaradda waxbarashadu brograam ay socodsiin jirtay brograamka oo ardayda foonfoorada caawinaya runtii wax dhaqaalaha kumay bixin wasaaradda waxbarashadu kumay bixin jirin waxaa nagu caawin jiray oo runtii naga caawiyey t v-ga la yidhaha bulsha t v-na hadduu joogiy hadduu maqan yahay waxaan leeyahay aad iyo aad baad u mahadsan tahay ilaahayna miisaanka xasanaadka ha kuugu daro wasaaradda waxbarashada si hagar la-aana oo runtii dhaqaalo ku xidhnayn ayaan sheegaya ama ha jooga ama ha maqnaado waa ardayda tuulooyinkuna warqaday noo soo qoraan aad bay uga faa'iidaysteen barnaamijka runtii markaa waxaan leeyahay shilin laysa siiyo waxa ka weyn waa sadaqatuljaariya ardayga ka faa'iidaystay tuuladaa joogeen macallinka fisigiska ama chemistryga aan helayn eed adigu u tabisay ha laga yaabaa berrito dalka inuu wax ka noqdo ajarkiisu intuu ninkaasi wax taraya adna uu kuu socdaa cali xarbina intaasaa leeyahay isagana waxaana leeyahay dadaalkaaga halkii ka sii wad ma sheegi doono maanta waxa la yidhaahdo top 10 arrintaa sidaad la socotaane hore aanu saxaafadda wasaaradda waxbarashada ugu sheegtay top 10kii markaa waxaynu ku bedelnay inaynu waataynu barnaamijka hore sharaxaadiisa u gallay markaa waxa weeye iskuol waliba wuxuu ardaydiisa ayuu dee top 10kiisa iyo oo isaga iskuolkiisa ah ardayga ugu sarreeyey iskuol waliba isaga isqiimayn doono markaa oo ardaydiisa sheegaysa laakiin wax cid sheegan karto oo sheegi karto ama odhan karta dalkii anaa u sarreeyey ama dalkii iskuol hebel baa u sarreeyey bataatanba ma jirto waxa weeye rikoorkaa wuxuu kayd ku yahay seefarka xafiiska imtixaanaadka sababto waxa weeye iskuol walba waxaanu siinaynaa imtixaanaadkiisii oo la socdaan ardaydiisu maado walba siday ku yihiin waxaa kaloon sheegan jecelahay in aada loo dhegeyso khamiistan soo socto khamiisteeda hadduu ilahay dhaa waxaa la qaadi doonaa imtixaankii soos ardayda tegaysay fasalada foomwanada dugsiga sare ee soos reshiya lagu qaybiyaa
maaha tiro la mala awaalo waxa weeye tirada uu gobol waliba leeyahay ardayda ayaa lagu soo saaraa marka gobol waliba tiruu ka helaya waxay ku xiran tahay number of students ka uu gobolkaasi leeyahay marka ardayda la akhriyo doono waxa la rabaa inay cid kala soo lugoyn waxay noqon doonaan marka haddii misalan 22 heleen gobolka la yeedhiyaa haddii misalan awdal kale la yeedhiyaa 22 ka arday 22 ka arday marka eerarkii ugu sareeyay ayaa soo iman doona imtixaankii soo halkan ku gali doona saddexda maado ah waxaan kaliya ka dhawaajin doonaa oo sheegi doonaa tirada gudubtay tirada dhacday iyo tirada aan gelin baynu sheegi doonaa oo ah dugsiyada sare iyo dugsiyada dhexe hansoo imika waxaan ku dhawaaqaynaa markaa dugsiyadii dhexe dalka tirada ardayda u fadhiisatay waxay ahaayeen waa gobol baan u sheegaynaa gobolka awdal waxa u fadhiistay 2223 arday waxa gudbay 1860 arday waxa dhacay 331 arday waxa aan gelin 25 arday baran waxa ardaydu ahayd 561 arday waxa gudbay 428 arday waxa dhacay 75 arday waxaan gelin 58 arday buuhoodle 347 arday ayaa u fadhiistay imtixaanka dugsiga dhexe waxa gudbay 336 waxa dhacay 3 arday waxa gudbay waxaan gelin 8 arday daad mareed 9 arday ayaa dugsiga dhexe u fadhiistay waxa gudbay 94 arday waxa dhacay 5 arday wax ka maqnaa ma jirin imtixaanka way wada galeen gabiley 1352 arday baa imtixaanka u fadhiistay waxa gudbay 1138 arday waxa dhacay 202 arday waxa aan gelin 12 arday hawd 48 arday baa imtixaanka u fadhiistay waxa gudbay 44 arday waxa dhacay 3 arday waxaan gelin arday maroodi jeex oo populationka ardayda marka la eego dalka ka noqonaya 65% ugu yaraan halka marka waxaad ka garan kartaa shar iyo khayr bayada u badnaanaysa ayaa halka aad ka fahmaysaa because inta gobol kale dhan oo la isku daray ayay la baaxa tahay ama waliba ka badan tahay wax dheer tahay marka tirada u fadhiisatay maroodi jeex oo waa caasimadii dalka oo cid ka maqan ma jirto maroodi jeex marka waxa u fadhiistay 8664 arday ayaa dugsiyada dhexe u fadhiistay waxa gudbay 7309 arday waxa dhacay 1287 arday waxa aan gelin 77 arday saaxil waa 719 arday baa u fadhiistay imtixaanka waxa gudbay 652 waxa dhacay 60 arday waxa aan gelin 7 arday selel gobolka selel 126 arday baa u fadhiistay 107 arday baa gudbay 19 arday baa dhacay waxa ka baaqday ma jiro sanaag 196 arday baa u fadhiistay waxa gudbay 108 arday waxa dhacay 730 arday waxaan gelin 24 arday saraar 261 arday baa dugsiga dhexe u fadhiistay 260 baa gudbay hal wax ka dhacay ma jiro hal arday baa ka maqnaa oo imtixaanka gelin sool 885 arday ayaa imtixaanka u fadhiistay 820 baa gudbay 830 arday baa dhacay 720 may gelin tog dheer oo iyaduna imika second maroodi jeex marka tirada la eego iyaduna eeshcala kor aad ugu kacday tirada ardayda marka la eego 3420 arday baa u fadhiistay waxa gudbay 2875 waxa dhacay 511 waxa aan gelin 34 arday waxa halka tirada imtixaanka inoogu fadhiistay dalka sanadka waxay 19874 arday waxa dhacay 1738 arday waxa baasay 17830 arday waxa dhacay 2562 dalka oo dhan waxa aan imtixaanka gelin 274 arday waxaan laakiin jecelahay inaan
مثلا waxaan isku combine waxaan jecelahay in yar dul marno kun iyo 996kii bay ahayd markii la bilaabay dugsiyada hoose dhexe in imtixaan laga qaaday Somaliland waxa lagu bilaabay 7 iskuul ayaa lagu bilaabay maantana waxay marayaan 470 ilaahay aadan ugu mahadnaqno waa horumarka ay sameeyeen kororsiimo waxaana waxa u sababihi waa nabadda marka sidaasay u koreysay sanadba sanad ka dambeeya ilaa maanta 470 tirada ardayda hay sugada waxa weeye tirada ardayda aynu beriga ku lagu bilaabay grade 8ka waxay ahayd 196 arday maantana waxay maraysaa 19874 arday waxaad arkaa halkaana ka garanaysaa kororsiimada ha inay yani sida u kordhayso alxamdulillah rabbil caalamiin dugsiyada sare waxa la bilaabay 1992 waxa laga yaabaa qoladii halka joogta qaar kamid inay kamid ahaayeen ardaydii waqtiga dugsiyada sare lagu bilaabay 4 iskuul baa lagu bilaabay 4 dugsi sare ayaynu ku bilownay maantana waxay marayaan 137 dugsi ayay marayaan marka waliba laga reebo private candidateska ardayda sidoo kale ama dibadaha ka timid wax soo baratay ama shaqaystay laga qaado oo iyaguna fasal dhan iska noqon karaan iskuuladaynu ku bilow tirada ardayda ku bilowna dugsiga sare sanadka 2000 iyo 1999 ilaa 2000 tirada ardaydu waxa ahayd 277 arday baan ku bilownay oo foofurado fadhiistay maantana waxay marayaan 9734 arday marka halkaan waxaad ka garan kartaa kororsiimada inaan sanadna inaga dhilo garoobina ardaydeenu kor u kacayso kor ordayeen waxaan imika marka bilaabaynaa dugsiyada sare natiijadoodii siday ahayd ayaan idadana imika halkan rabnaa inaan ka sheegno awdal tirada ardayda u fadhiisatay dugsiga sare waxay ahaayeen 1491 arday waxa gudbay 1328 arday waxa halkii la rabay aan gaarin 99 arday waxa habsaan ahaa oo imtixaanka ka qayb gelin 460 arday waxay noqonaysaa marka wuxuu noqonayaa marka la isku wada daro ardayda halkii la doonayay aan gaarin 7% waa 7% baran waxa imtixaanka u fadhiistay 275 arday dugsiyada sare waxa baas gareeyay 227 waxa halkii la rabay aan gaarin 17 arday ha 17 arday hada waxa kelmadu afka uma fiicno malaa waxaynu qaadanay tale ha okay 17 ka arday baa awaayay oo natiijada la rabay aan gaarin oo dhimcinaha dhacay waxa habsana 31 arday iyaduna waxa way 7% arday ayay noqonaysaa ardayda dhacday buuhoodle 189 arday ayaa imtixaanka u fadhiistay 178 ayaa gudbay wax dhacay ma jiro laba ka maqnaa dad mareed 37 arday bay ahaayeen 36 baa baas gareeyay wax dhacay ma jiro arday baa ka maqnaa imtixaanka aan gelin gabilay 562 arday baa u fadhiistay 530 baa gudbay 30 baa dhacay laba habsan ahaa hawd 29 arday baa ahayn 29 way gudbeen wax ka maqnaa ma jirin maroodi jeex 3914 arday ayaa imtixaanka u fadhiistay waxa baas gareeyay 3327 waxa dhacay 449 arday waxa ka maqnaa 48 arday macnuhu waxa weeye 3% ayaa dhacay 7% way gudbeen waayahay saaxil 529 arday bay ahaayeen 522 baa gudbay hal arday baa dhacay 6 way ka maqnaayeen oo may gelin
sanaag 314 arday 219 arday yaa gudbay 21 arday baa dhacay labaan imtixaanka gelin boqolkiiba 7 way dhicido marka saraar 380 arday 280 baa yaa gudbay wax dhacay ma jiro hal arday baa imtixaan ka maqnaa sool 570 arday bay ahaayeen 564 arday yaa gudbay laba yaa dhacay afarna way ka maqnaayeen oo may gelin marka wax dhacay waa wax percentage aad u yar waa 0% iska noqonaya tog dheer 1660 arday baa u fadhiistay waxa gudbay 1578 arday waxa dhacay 59 arday waxa ka maqnaa 20 arday boqolkiiba 4 way noqonaysaa percentage ka dhacay halka waxa inooga soo baxay tirada ardayda ee gudubtay sanadka waxa weeye 9691 arday ayaa u fadhiistay imtixaanka waxa gudbay 8778 waa dugsiyadii sare waxa dhacay 723 arday marka isku wadara dalka oo dhan waxa weey marka percentage ay noo bedelo micnaheedu waxa weey boqolkiiba 290 arday baa gudbay dalka oo dhan waxa dhacay boqolkiiba 8 arday waxa oran karnaa waa runtii waa guul aad u weyn oo waxa weey marka lagu leeyahay wuu dhacay micnaha ardaygu waxa weey secondary-ga waxay galaan 12 maado waxa weey ardayga waxa laga rabaa waxaynu joojinay wixii la oran jiray wax D- la yiraahdo ma jiro oo inu awal isticmaali jirnay oo waxaan aragnay inay systemkii tacliinta hoos u dhigayso marka waan joojinay dabadeeto waxa weey ardayga waxaynu ka rabnaa A iyo B iyo C iyo D awal D- bay noogu sii jirtay runtii marka waxa weey kolkaan ka hadla sanadkan xagga jiitinka hoos buu u dhacay baalkii mobilka la oran jiray haqishkii kala eegashadii qishkuna waa Carabiga kala eegashadii hoos bay u dhacday laakiin waxa jira arday aan halkan ka jecelahay inaan ka sheego oo laga baabiyay maadooyinka iyo sababtii looga baabiyay ardayda waxa imtixaanka maadooyinka lagaga baabiyaa ardaygu hadduu warqadda imtixaanka ku soo dul qoro way waxaan jecelahay waxaan u sheegayaa ardaygu markuu arko maadadii no grade ugu qoran tahay wuu isweydiinaya isaga iyo waalidkiisu waxa laga yaabaa inuu ardaygu iska kii garka dheeraaba iga goosay meesha imtixaanka joogay micnuhu marka caynka baaha cid wax ka goosataa ma jirto cid waxa weey qodobada lagu gooyaa waxa yihiin ardaygu hadduu warqadda imtixaanku ku soo shaqeeyay gudaheega ku soo qoro roll numberkii telephone numberkiisa uu yiraahdo telephone numberkaas leeyahay uu micnaha u jeedo macalinka saxayo eeg macalinkiibu caayaya shaaradiibu caayaya micnaha ila soo hadal numberkaas leeyahay waa la cancel gareeyaa maadada waayo marka ugu horeysa jadwalkiisa waxa ugu qoray inuu ardaygu jawaabta waxaan ahayn inuu meesha ku qori karin qodobka labaad ee loo cancel gareeyaa waxa weey hadduu ardaygu warqadda imtixaanaadka saaro oo ama dibadda u saaro ama arday kale ka soo shaqeeyo yiraahdo iyadana waa la cancel gareynaya waxa soo dhan waxay ku xidhan yihiin ilaaliyaha iyo supervisor-ka soo report gareeya qodobka saddexaad waxa weey haddii ardayga la kari waayo warqadiisa intuu qaato la kaca kolba mid la garab tago wasiir Cismaan oo xisaabta ku fiican oo iskala garab fadhiisto kolka Ingiriisiga maanta Ingiriisiga la gaaro nin la kari waayo isagana waa la cancel gareeyaa uu soo report gareeyo marka waa in la helaa daliil cad waxa jira hadduu ardaygu wareejinayo qalab kala eegasho haddii aad sida mobilka ama buug iyadana waa lagu cancel gareeyaa haddii su'aalo laga shaqeeyay oo imtixaanka ku jira ardayga lagu qabto iyadana waa la cancel gareynaya way su'aaluhu markii hore diray way waa looga soo shaqeeyay okay haddii si bareera loogu qabto isagoo buug ka eeganaya ama mobil ka eeganaya waa la cancel gareynaya haddaba maadooyinka 12 maado mid walba wixii laga cancel gareeyay baan jecelayno arday walba iyo waalid waliba hadhow markuu arkaa uu garto maadada Carabiga 930 arday baa laga baabiyay oo aan natiijo uga soo baxayn biology-ga maadada 17 arday baa laga baabiyay chemistry-ga
labiyo soddon arday baa laga baabiiyey English Paper 1 15 arday baa laga baabiiyey English Paper 2 19 arday baa laga baabiiyey Geography 40 arday baa laga baabiiyey History-ga 22 arday baa laga baabiiyey hawa dalkooda waxa ka hadlaya Islamic aad bay muslimada Soomaaliland u fiicantay waxa ku daliila 10 kaliya laga baabiyey waxba iyada jiitigeegu aad buu yara xisaab Paper 1 36 arday baa laga baabiyey Maths Paper 2 51 arday baa laga baabiyey Physics 40 arday baa laga baabiyey Soomaali 22 arday baa laga baabiyey marka la isku wada geeyo 343 arday ayaa maadooyinka laga baabiyey su'aashu waxay tahay hadaba miyaa la iska baabiyey ma qof walba waxa loo hayaa wixii lagaga baabiyey baa ku dul qoran waxaana Daawudna ma baabiyo Xasanna ma baabiyo wasiirkuna ma baabiyo macallimiinta gacanta ku haysay kolka horena way soo report gareeyaan oo ardayga jiitikiisa warqad baa la soo raaciyaa halkan marka la saxaya labada ardayga waxa la socda report ay qoraan qorada ka shaqeysa sida waa macallimiintuna waa macallimiintii iskuulada wax ka dhigayay waxyaalaha lagu baabiyo waxa weeye adiga iyo walaalka hadda warqada isku bedeshaan ama adiga saaxiibka waa waxyaalaha la baabiyo waayahay awdal 22 arday baa laga rabaa inay 22 arday ugu sareeya dugsiyada dhexe baran 5 arday ugu sareeya waxa ardayda gelaysa soos oo imtixaanka soos bay gali doonaan khamiista soo socoto hadduu alla idmo marka ariyooyadina way maqlayaan way fadhiyaan maamulayaashina way joogaan ardayda uu joogaa maamulihii soosna uu joogaa ogeysiiska isaga ay nasiiyay marka asaas yaad u ogaanaysaan waxaan awdal 22 arday baran 5 arday buuhoodle 4 arday daad mareed 2 arday gebilay 13 arday hawd 1 arday maroodi jeex 7 arday saaxil 7 arday salal 2 arday sanaag 13 arday saraar 3 arday halka sanaag aadan ugu celiyo waa 13 arday khamiista soo socota sanaag aad u maqal hadhowyan annaga nalooma soo sheegniyeen iman iyo ma nu maqal nalooma imika aadan isku wada maqal waa 13 arday soo diyaar gareeya saraar 3 arday sool 9 arday tog dheer 33 arday 199 ka arday baa imtixaanka insha Allah u fariisan doona dabadeed intay ka qaadanayaan soos baa sheegi doonta imtixaanka